السلام عليكم أصحابتي قالقة أهواني سلامي سلام كبعدي وبلاشين هانا اوفيشال oo maad video cusub niibado asxaabtida qaaliga ayaan taaniiti may arkin anoo vlog soo gelinaya maanta vlog yar ayaan wadaa oo xalfad isheeg xarig jarme meel oo kubada cagta lagu ciyaaro oo hadda la furaayo marka asxaabtida qaaliga waan isla socodona insha Allah marka soo baxaya waxay ugu soo dhacday inaan soo duubo dan asxaabtida qaaliga wadadana waa iska isheeg buuq badan tahay marka hadda ayaan codka gaal ayaan ka soo saaray hadana la socod wanaagsan wadada marayna la socod wanaagsan in soo raacayna soo kaxeeya asxaabta qaaliga waa soo baxna wadada ayaan hadda soo maroona dan isheeg asxaabtida qaaliga hada nagu cusubta insha Allah subscribe ka naga hilmaamina gambale hore u furta nala soo socdaa marka isheeg hadana wadada ayaan qaaday asxaabtida qaaliga waan imaadna meeshan u baahanaynay ugu dambeyn hadana waxaan qabanaynaa meesha aan u soconay ayaan galaynaa bajaajkan ka soo degtay ilbaabka ayaan ka galooyaa hadda saa u jeediinbo meeshaan aadka u quruxda badan waaye isheeg waa meel weyn maasha Allah aan inaba caadi ahayn marka asxaabtida qaaliga meeshaan ayaan aniganiti imaanaye oo aan vlog dhiga soo biraway dan meesha buuq ay ahayd codka dib ayaan ka saaray xankaasi qaylada sita ayaan diidanay saaidka dan gaal ayaan codka ka soo saaray asxaabtida qaaliga waa heer ka bacdina waxaa dhici doona xarka jarmada oo meeshaaniti marka waan isla socodona insha Allah si fiican ugu soo socda asxaabtida
garoonkan ujeedo badan ayaa muddo badan ayaa maxay lahaayeen waa lagu tamaayo oo qalbiga ayaa lagu haayay in la furo garoon saan u weyn oo saan u qurux badan sidaas u jeedo juhdi badan la gasho marka waxaan rabnaa inay badbaadaaso dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta meel kale aan aadi karin oo maanta laga celinayo inay meel kale aadaan oo maskax kale maxay lagu abuuro ama mishiinka la saaro waxa kale maxay raadaan inay ka celinayso haddii balwado yeelan lahaayeen iskuulka markuu tiimayo wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed inay hesho meel ay soo shaqo ma karto ee banooniga ku dheeli balwadaha waa wax dilaya dhalinyarada balwadaha waa wax maxay raadaan baabiinaya dhalinyarada tahriibka sidoo kale garoomada sidaan oo kale waxaan leenahay dadweynaha iyo ganacsatada inay badiyaan garoomada sidaan oo kale sababtoo waa loo baahan yahay tahriibka ku istaaga balwada laga joojinaya wuxuu ku istaagaa waxyaabaha xun oo dhan istaagaya garoonka waxa la yiraahdaa Ismaaciil Gariilo waxa waaye waa ciyaartooy hore waaye qaranka u soo dheelay waa nin laacib ah nin la yaqaano waaye marka maadaama uu yahay nin Soomaaliya maarka national ku sabtay waxaan loogu magac garoonka Ismaaciil Gariilo waxaan rajaynaynaa dadweynaha halkan degan inay yimaadaan ka soo qayb galaan ciyaaraha maxay hore loo mariyo saas ayaan rajaynaynaa ma aha kaliya garoonka loo furiyo wiilal waxa kale loo furay gabdhaha Soomaaliyeed loo furay maalintiina leeyihiin haddii aad maarka soo leexataan inaad timaadaan idinka sidoo kale ma aha kaliya guriga fadhiisa iskoolada balwada yeelan kartaa oo maxay banooni inaad ku hagaajiso taas waa marka tabaan maxay isleenaha haweenka guriga ka soo baxaan hadeeyaan si loo qaadan banooni aad dhashinna naarku mutayaysa waa wax maarkan oo aad niyadaada iyo ka ku gelinayo farxad marka waxaan rajaynaynaa gabdhiyo wiilalba kolay aniga feministan ah gabdhaha aad maxaa aan u promote gareeyaa inay gabdhaha ay ka soo qayb galaan aniga markasta waa imaanaya waa fiirinaya waxaan rabaa inaan arko gabdhiyo halkaas ku dheelaayo oo wiilasha la tartamo 5-0 aad dhigtaan hadduu ilaa raaco haddana waxaan ku wareejinayaa nadiifo oo ayadana aad maaragta maxay raadaan oo u ololeyso gabdhaha sport nadiifo ku soo dhawaada laakiin waa meel farxad gelinayso dadka oo dhan macnihii maanta waxaa loo baahan yahay meelo saan oo kale oo badan meelahan oo kaleentana waa meelaha keliya oo kulanka iyo dadku ay ku kulmaan waana meel si wanaagsan laakiin waxaan ka xumahay hadda Soomaalida oo dhan waxay u haystaan football ama sport inuu ragga keliya leeyahay marka ragga keliya ma laha waa la isla leeyahay dhinac walba marka waxa waaye waxaan ku dhiirigelinayaa wax kale maaha jaanis hal siiyo gabdhaheena raba inay yimaadiin meeshaan waxaana rabnaa oo kale maalmaha ay leeyihiin gabdhaha xataa waa in jaanis fiican la siiyo oo ay keligood ay joogi karaan marka wax kale idinkuma dhiirigelinayo waxaan idin leeyahay soo dhawaada isboortiga waa waxa ugu fiican oo qofku balwada uu yeelan karo oo wax walbana ka celin karo dadba inaa fariisan kaaga ron inaa kululaatid inaa meeshaas maxal la fariisatid waxaa kaaga fiican inaa banooni yeesho inaa maxaa la dhahaye meel kale aad urudid jirka mentally iyo physically ayuu ugu fiican yahay isboortiga mahadsanidina bismillaahi raxmaani raxiim bahda isboortiga ee degmada Dharkiinley ciyaartooyda hore ee dalka
maamulka garoonka Ismaaciil Gariile Faxal dhammaan waxaan idinku salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaa maanta farxad noo ah garoonkan caalamiga ah ee aad u wada jeedaan habka loogu sameeyey degmada wuxuu ka mid yahay garoomada ugu wanaagsan ee ka jira deegaanka waxaana farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka garoonka waxaana hawshaas si awood ama dadaal ah oo dardar ah ku galay ninka la yidhaahdo maxamed cali kulmiye oo ku magac dheer galaay waanu ku faraxsannahay dhammaantiinna waxaan idin rajaynayaa in garoonkan laga soo qayb galo yara sida gabdhahaba ka dhawaajiyeen rag iyo dumarba da' ka samay waxay doonaan noqdaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha garoonka بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد علي كلبيه إلهي كسبه قرون كان محمد شلهاي أحمد حاج موسى قرون كان لو ما دسين قال لو ما دسين قال لو دسين إن وحلو برضو مجا لو مجا بي قرون كان إسماعيل قليل هاي قال ذاتك اللي حدا يشن جراي غاني ذاتك هذا ما يغاني محكومة هذا معلمون ما أنت طالعين روحهم كلنا دارما قرون كانوا جديدين وقرون لرامسن ما أنت وحنا أركها كبدا حتى ماشي جلتو نقول بحوله ماشي يجي ماشي وحلوقي من البوسيس لقاطه وعياره وننام لقاطه وقت اللي قلت له وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.